soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan idin wadaa filim Korean action ah waxaana lagu magacaabaa Hatchet kor inta aan bilaawin waxa ka codsanayaa inaad YouTube-kana subscribe asartid videogaanne like sartid hadduu codkii si fiican ku soo gaari waayeen waan ka raaligelinayaa sababtoo hirgab ayaa ugu dhagan filimku waxa uu ku bilaabanayaa magaalada Busan Song oo maareeyaha sare ka shaqeeya bangiga wuxuu subaxdii qaadanayaa baabuurkiisa soo caruurtiisa iskuulka u geeyo gabadhiisa Hay iyo wiilkiisa Min Jun waxa muuqata in qoyskiisa ay yihiin qoys wanaagsan oo nolol ku nool markuu gaariga dhaqaajiyay wuxuu maqlayaa telefoon aan la garanaynin oo ku jiro gaarigiisa waxaana saaran sawirka qoyskiisa iyo asaga oo si qarsoodi ah looga qaaday Song wuu yaabayaa wuxuuna ka shakinayaa in qof gurigiisa soo galay markuu telefoonka qabtane in codkiisa hoose ay la hadlaayo wuxuuna u sheegayaa inuu ku xiran yahay bom cadaadis ah gaarigiisa wuxuuna yaalaa kursiga hoostiisa ayuu dhahayaa wuxuuna u sheegayaa in bomku uu qarxayo hadii uu qof gaariga ka dago hadduu cid ogeysiiyane waa qarxayo ayuu dhahayaa Songina aad u argagaxaya wuxuu bilaabayaa inuu hoos taabto kursiga wuxuuna bir adag oo ku duuban tahay fiilooyin ninkii wuxuu bilaabayaa inuu dalbado lacag aad u fara badan ee lacag cadaan ah hadii uu diidane caruurtiis midkood ay halkaas ku dhimanayo markuu iskuulka hor istaagane Min Jun wuxuu doonayaa inuu gaariga ka soo dago laakiin Song wuxuu ku qasbaa inuu fadhiisto wuxuuna ku qasban yahay inuu caruurtiis u sheego in bam gaariga ku jiro caruurtiisana aad ay gagaxayaan saaxiibkiisa isna bangiga ka shaqeynayay ayaa wicitaan la mid ah helaayo xaaskiisana way dagaysaa gaariga halkaas ay ku qarxayaa markaasna waxa xaqiiqoobayso in hanjabaada ninkaas ay tahay mid dhab ah qarax kadib bir ayaa soo faniinayso waxaana ku dhacaysaa lugta wiilka Song wuxuuna bilaabayaa inuu aad u dhiig baxo booliisku wuxuu maleeyahay inuu qarax Song ka dambeeyo CCTV-da ayaa tusinayso inuu goobta ku sugnaa daqiiqado ka hor qaraxa Song wuxuu noqonayaa eedeysanaha koowaad xitaa asagoo dhibana ah Song wuxuu bilaabayaa inuu lacag ka soo aruuriyo macaamiisha VIP-da ah isagoo u sheegaya inay jiraan fursado maalgashi ah wuxuuna dareemayaa cadaadis iyo cabsi si uu u badbaadiyo caruurtiisa ninkii wuxuu qasbaa Song inuu xaaskiisa waco si uu soo qaado lacag cadaan ah xaaskiisana way ka shakinaysaa laakiin ugu dambeyntii lacagtu way soo qaadaysaa markii lacagta dhigtane lacagtana meesha u tilmaamay dhigaysaa nin kale aad moodo inuu lacagta soo qaadanayo ayaa meesha lagu qabanayaa laakiin ninkii saxda ah ma aha ninka dhabta ah wuxuu qarxinayaa sanduuq boostada ee lacagta ay ku jirtay lacagtana halkaas ayay ku gubanaysaa xaaskiisana dhaawac ayaa soo gaarayo booliiskan waxay hareeraynayaan Song oo weli gaarigiisa dhex fadhiyo wuxuu isku dayayaa inuu isdhiibo laakiin markuu arko sida booliisku fahmila yihiin wuxuu go'aansanayaa inuu baxsado si uu caruurtiisa u badbaadiyo booliiskana way dabraacayaan kooxda qaraxyada waxay ogaadeen in bamku uu ku jiro kursiga hore oo kaliya caruurtana way ka baxsan karaan si kastaba gabadhiisa way diidaysaa inay aabeed ka tagto Song wuxuu ku qancinayaa inay iyada badbaado oo loo qaado ambalaasta markay booliisku isku dayayaan inay toogtaan waxyar kadib meesha waxaa imaanaya nin dhalinyaro oo lagu magacaabo Jin Woo oo u yimid isagoo sheegaya inuu yahay walaalka Song wuxuuna codsanayaa inuu la hadlo booliiska ayaa sidoo kale u ogolaanayo maadaama uu maleeyahay inuu qancin karo Song inuu sii daayo gabadhiisa dhawaan Jin Woo wuxuu soo dhawaaday Song wuxuuna markaas si naxdin leh u sheegayaa inuu isaga yahay qofkii soo wacay Song iyo carisan ayaa qabtay laakiin Jin Woo wuxuu ku hanjabayaa inuu kicin doono bamka wuxuuna dhahayaa kama cabsanayo inaad dhinto maadaama adduunkan wax aan ku heenin wuxuuna u sheegayaa inay dhammaantood isla qarxi karaan markuu maqlay arrintan Song wuxuuna ballan qaadayaa inuu heli doono dhammaan lacagta wuxuuna ka baryayaa ninka inuu ugu yaraan gabadhiisa sii daayo Jin Woo wuxuu ku raacayaa arrintiisa wuxuuna si ku meel gaar ah u joojinayaa bamka isagoo ogolaanaya in gabadhiisa sinawada ugu asigana wuxuu tusayaa bam kale wuxuuna leeyahay waxaa ka hartan 18 daqiiqo oo kaliya kahor inta uusan qarxin wuxuuna dhahayaa haddaan helin waqtigaas gabadhu way dhiman doontaa tan kadib Jin wuxuu la kaxeynayaa gabadha booliiskana ma soo dhex gelin iyagoo u malaynaya inuu yahay qof qoyska ka mid ah dhanka kale Song oo quusta ayaa sidoo kale kaxeystay isagoo ku daba jiraan baabuur badan oo booliis ah xaaskiisa dhinaca kale waxayna daawanaysaa TV waana ka naxday markii aragtay qof kale oo sheeganayo inuu yahay walaalka Song waxay isla markiiba u sheegtay booliiska inuusan ahayn walaalkiisa laakiin markaas waxay aad goor dambe Jin wuxuu ku dhuumanayaa indhahooda waxyar kadib Song wuxuu wacayaa dadkii ka sareeyay wuxuu dhan ka baryaa inuu amaahiyo lacagta isagoo sheegaya inay tahay arin nolol iyo geeri ah laakiin ninka si qabow ay ugu diidaya isagoo leh maadaama Song uu qaatay lacag badan tan waxay ka dhigtay Song mid quus ah sidaas darteedna wuxuu wacayaa xaaskiisa wuxuuna ka codsanayaa inay lacag ku wareejiso dhammaan akoonkiisa oo u wareejiso kooning soo wacayo Jin wuxuu markaa wacayaa Song wuxuuna farayaa inuu yimaado dekad gaar ah taasoo Song xasuusisay falalkiisa 6 sano ka hor flashback dhexdiisa waxaana loo sheegayaa 6 sano ka hor Song uu ka shaqeynayay shaqaale caadi ah bangiga wuxuu isticmaalaya khiyaanooyin suuqeyn ah si uu u qanciyo shaqaalaha warshada kiimikada qaarkood inay maalgashadaan shirkadooda markii suuqu uu si lama filaan ah u dhacay maalgashadayaal badan waxay lumiyeen lacagtooda oo dhan oo ay ku jirto haweeney miskiin ah oo uur leh oo maalgashatay wax walba ay lahayd si kastaba ahaatee halkii uu ka caawin lahaa Song wuxuu burburiyay cadeemihii wuxuuna qarinayaa qaladaadkii bangiga doorkiisa khiyaanada saraakiisha ayaa ku abaalmariyeen inay u dalcaan maamulaha laanta haweeneydii uurka lahayd ee quusatay
ayaa mar kale ka barisay Songi waxayna ku codsatay taladiisa si ay ugu yaraan u soo cesho lacagtii asalka ahayd laakiin ninkii damiirka xumaa oo iska indhatiraya waxaa soo baxday haweeneyda uurka lahayd inay ahayd xaaska Jinwoo haddana wuxuu ugu yimid si uu u argoosto qoyskiisa asigana wuxuu dhahayaa waa waqtigii dhibanayaasha ee bilaabi lahaayeen nolol cusub waxyar kadib Songi wuxuu gaarayaa dekada u dhoweyd warshada kiimikada ee halkaas oo ay ku jiraan calaamado badan oo lagu eedeynayo bangiga wuxuu markaa helayaa gabadhiisa oo xiran oo cabsi qabta dhanka Jinwoo ayaa u imaanayo wuxuuna fadhiisanayaa kursiga hore ee Songi ah bangiilu wuxuu ku cudur daartay wax walba oo dhacay wuxuuna balan qaadayaa inuu dagaalami doono dhammaan dhibanayaasha laakiin Jinwoo wuu diidayaa wuxuuna sheegayaa sidii asaga iyo xaaskiisa ay dacwad ugu gudbiyeen bangiga si ay u dabagalaan kiiska waxay ku qasbanaadeen inay deyn ka qaataan bangi kale kaasoo ku xabisay deyn aan dhammaad lahayn xaaskiisa way isdishay ugu dambeyntii iyadii ilmahooda aan dhalanin wuxuu ahaa waqtigaas markuu waayay wax walbo markii xigta Jinwoo wuxuu weydiistay Songi inuu gaariga u kaxeeyo biyaha si uusan u qarxin gabadhiisa wuxuuna ku dhex kaxeynayaa badda laakiin gaarigu wuu degayaa ka hor inta uusan bamka qarxin Jinwoo ayaa miirdaboolmayo Songi wuxuu bilaabayaa inuu caawiyo oo badda ka bixiyo laakiin kuma guuleysanayo bamkii ayaa ku qarxaya laakiin Songi wuu ku guuleysanayaa inuu ka baxsado qarxii waxaana badbaadinaya booliiska wuxuu markaa weydiisanayaa saraakiisha war ku saabsan Jinwoo laakiin waxaa soo baxday inuu geeriyooday Songi wuxuu go'aansanayaa inuu noloshiisa bedelo wuxuuna u dagaalamaa dhibanayaasha aan waxba galabsanin wuxuuna u soo baxay bulshada wuxuuna qirtay dhammaan falalkii khiyaanada ahayd ee isaga iyo bangiga ay ku lug lahaayeen wuxuuna qirtay inuu burburiyey cadeymihii asalka ahayd laakiin markhaati furkiisa uu ku filan yahay inuu dambiilayaasha cadaalad ka hor keeno halkaas ayuuna ku dhammaanayaa filinkeena waana mahadsantihiin daawashada aad daawateen haddaa ka heshiisaa kugu soo gudbiyey filinkaanne waxaa kaa codsanaya inaad like iyo comment qurux badan aad noo soo gudbisid